Bismillah, assalaamu calaykum. Soo dhawaada dhammaan walaalaha qaaliga ah ku xidhan Hanilaki Channel. Maanta qisadan aan inoo hayo. Odaygan waxaa la yidhaahdaa Mikail. Amerika ayuu ka yahay dhakhtarka caruurta. Sideetanaadkii waxaa dhacday odaygani inuu maalin 24 saacadood oo xidhiidh ah ku jiray qolka qalliinka, taasoo uu ku badbaadinayay ilmo yar miisaanka uu ku dhashay aad iyo aad u hooseeyay. Xaaladda ilmaha yarna may wanaagsanayn, qalliinna waa lagu sameeyey si ilmaha yar loo badbaadiyo. Mikail qalliinkii uu ku guuleystay, ilmihii yaraana wuu badbaadiyey. Alle ka sokow, Mikail ayuu alle sabab uga dhigay inuu ilmaha yari noolaado. Ilmihii yaraa wuu noolaaday muddo 30 sano kadib ah. Odaygii Mikail wuxuu galay shil aad iyo aad u xun. Gaadhigii ugu horreeyay ee soo gaadhay gargaarka degdega ah ee u yimi meesha inuu badbaadiyo qofkan shilka galay wuxuu noqday ilmihii yaraa ee uu dhakhtarkani 24 saacadood oo xidhiidh ah qolka qalliinka awgii ugu jiray kuna dadaalayay badbaadintiisa. wiilkii badbaadinaya gargaarka degdega wuxuu yiri markii aan ogaaday inuu yahay dhakhtarkii markii aan yaraa i badbaadiyey waxaan wacad ku maray inaan badbaadiyo si walba igu qaadato nolosha dhakhtarkii i badbaadiyey markii aan yaraa. Nasiib wanaag, doctorkii Mikail uu ka badbaaday shilkii aadka u xumaa ee uu galay, sababna alle wuxuu uga dhigay wiilkii yaraa ee uu badbaadiyey isagoo yar inuu isagana badbaadiyo. Qisada maxaynu ka baranaynaa? Qofkii khayr sameeya maalin maalimaha ka mid ah unbuu alle u soo celinayaa khayrkii uu sameeyey. Wiilkii yaraa ee uu dhakhtarkani badbaadiyey 24 saacadood oo xidhiidha isaga awgii si uu u badbaadiyo ugu dadaalayay oo ugu jiray qolka qalliinka. Markii uu noolaaday wiilkii yaraa ee uu weynaaday wuxuu noqday qolada gargaarka degdega ee dadka badbaadiya. Odaygii maalintii uu shil galay khatar isagoo ku sugan u baahan in la badbaadiyo waxa badbaadiyey ilmihii yaraa ee uu hadda ka hor badbaadiyey isagoo yar. Khayr walba oo aad samaysid ogow inaad abaalkiisa helaysid. Inagoo muslimiinana waabaynu kasii niyad wanaagsannahay dadka kale, waayo waxaynu ognahay khayr walbaynu samayno adduunka ama aakhiro miduun inaynu ku helayno. halkan bay noogu joogtaa qisadeenu. insha allah intaynu kaga kulmino qiso kale cusub waxaan idin leeyahay fi amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.